dastuurka gacan ku rimiska ee Soomaaliya ka shaqeeya meel kasta oo Soomaalidu degto amba ha ahaato Somaliland, Puntland, Saqajaanland, Qurunland dhammaan dhawaaqida madax ku sheega ah ee Soomaaliyeed dastuurka gacan ku rimiska ah fadaraha ay isticmaalaan ma aha wax diinta Islaamka shaqo ku leh balse waa dastuur gacan ku rimisa oo Soomaalida si khaas ah loogu sameeyay si diintooda looga fogeeyo oo kitaabka ku dhaqankiisana ay oga tagaan waa wax dimuqraadiyadan ay gaaladu sheegtaan aan ahayn kitaabkii iyo sunnii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee Ilaahay inoogu soo dejiyay inaan ku dhaqanana aan ahayn waxa weeyaan waa gacan ku rimis samays ah muuqaalkan aad daawan doontaan ayaa hadda si fiican idinku faahfaahin doona walaalkan muuqaalka dhamaysta fadlan subscribe ta ku saabira page-kan YouTube-ka ah muuqaalkana dhageysta waxbayaan hadalkayga ku badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودين سلام يا مركله ميل والبو joogtaan iyo si walba oo muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaarayaba waxaan doonayaa muuqaalkan inaan kaga hadlo topic aan doonayo inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan markaasi bal maskaxdooda aan ku soo biiriyo hab fakir loo baahan yahay in si weyn la isku weydiiyo waqtigan xasaasiga ah markii aan waqti badan galiyay dastuurka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay si weyn dhagaheena loo maqashay dastuurkii baa la qalday dastuur baa la qoraya dastuur baa la dhameystiraya dastuurkii waa la tuuray dastuurkii ayaa waxaan go'aansan balna waqti badan aan dastuurkan galiyo balse aan wax oga fahamo inta badanna waqti badan ba ma galiyo mana akhriyo ma arkaysaan sidaa daraadeed waxaan ogaaday in dastuurka Soomaaliya ee 2012 la qoray ee wali qabyo qoraalka ah isla dastuurkaas laftirkiisu marka koowaad ma aha dastuur islaama marka labaadna ma aha dastuur Soomaaliya wa hadal la yaab leh Soomaha qof baa la oran jiray qofkan islaam ma ahan iyo qofkan Soomaali ma ahan laakiin waxaan leeyahay buugan Soomaalina ma ahan islaamna shuqul kuma laha sababtan u leeyahayna waxaan ogaaday in dastuurkaanu uusan ahayn mid diinteena shuqul ku leh isla markaasna uusan ahayn mid Soomaalidu leedahay shayga inaad leedahay waxyaalaha ugu horeeyo oo lagu garto waxa ka mid ah inuu yahay shay adigu ama aad soo iibsatay ama aad samaysatay ama aad tacabatay inuu yahay sahan telefoon baa gacantayda ku jira telefoonka iska leh oo maxaa cadeyn anigu iska leeyahay marka ugu horeysa lacag aan leeyahay baan kala baxay rasiidkiisii baan haystaa magacaygan ku qortay aniga iska leh sida daraadeed dastuurkan aynu arkayno marka ugu horeysa dhaqaale Soomaaliyeed laguma qorinin aqoon Soomaaliyeedna laguma qorinin halka laga soo minguuriyana diinteena iyo dhaqankeena midna ma aha sida daraadeed dastuurkaanu ma aha mid anagu aynu markaas leenahay saddexdaas qodob aan sheegay ee ku saabsan dhaqaalaha aan leenahay inaan lagu qorinin iyo aqoon aan leenahay inaan lagu qorinin iyo diinteena iyo dhaqankeena uusan midna ka turjumaynin mid walba cadeynteeda ayaan idin hor keenayaa marka ugu horeysa markii aad fiiriso halka dastuurkan lagu hayo oo database-ka ah oo uu ku jiro marka dhanka Google-ka aad ku qorto dastuurka Soomaaliya waxaad arkaysaa halka uu ku jiro inay tahay UNPOS inay tahay waa organization ee qaramada midoobay leeyihiin ayuu ku jira oo inoo haya oo database-ka halka loogu laabto waa halkaasi UNPOS-ku waa organization la sameeyay 1995 ki Soomaalida darteedna loo sameeyay waxa laga soo gaabiyay United Nations Political Office for Somalia xafiiskaasna waa xafiis la sameeyay in 1995 xilligii ay dawladnimadeenu ay burbursanayd ayaa xafiiskaas qaramada midoobay ay Soomaaliya u sameeyeen si markaasi waxyaalaha hadda aan sheegi doono markaasi loo hirgeliyo markii aad furto qodobada dastuurkaani ku qoran waliba kuwa ugu horeeya markii aad fiiriso asagoo dhan wuu yahay laakiin bal kuwa ugu horeeyaan tusaale in kaga soo qaadaya markii aad fiiriso qodobka 10aad iyo qodobka 12aad baan fiirin doonaa laakiin asagoo dhan waa sida qodobka 10aad marka aad fiiriso waxaad arkaysaa qodobkaasi in la yiri wuxuu ka hadlayaa karaamada aadamaha ayuu ka hadlayaa baalid waa karaamada aadamaha oo maxay tahay karaamada aadamaha markaad karaamada aadamaha maqashaan moodina walaqad karramna bina aadama in laga hadlayo waxa laga hadlayaa arrin kaleeto oo qodobo weyn oo nimankaanu
ay caan markaasi ay ku yihiin waana halka laga soo minguuriyay ereygaas waa erey la soo jaray weey sida uu labada erey isku raacaya markaad fiiriso waa erey la soo jaray waana ereyga la yiraahdo human dignity ereyga la yiraahdo weey waana qodobka caanka ah ee la yiraahdo human dignity weey meesha laga soo minguuriyay markaad google-ka xataa ku qorto markii aad ku qorto translation-ka ee ayagu inoo sameeyeen naftirkiisu karaamada aadamaha markaad ku qorto waxaad arkaysaa human dignity buu ku soo qoraya waa maxay human dignity oo qodob caan ah oo la yaqaano isla markaasna lagu xalaaleynayo dadka isku jimsiga ah inay markaa isguursan karayaan waa inay laba nin isguursan karaan waa inay laba dumar isguursan karaan waxyaalaha noocaaya ee qashinka ah ee nimankanu ay qoraan qodobka markaasi lagu xalaaleeyo waa in leeyahay qofka dignity-giisa loo daayo qofka dignity-giisa lagu sharfo human dignity-ga laga shaqeynaya ma arkaysaa yaan qofkan la bahdilin balay qodobkaas marka wuxuu leeyahay farqada yar yar oo aad u tiro badan buu leeyahay ilaa iyo 12 buu leeyahay privacy-ga kamida discrimination-ka kamida hoos marka u degto arkaysaa inay same sex marriage-ka markaasi ay kamid tahay dadka isku jimsiga inay markaa isguursan karaan marka qodobkan halkaas laga soo minguuriyay waa qodob weyn oo la yaqaano dastuurka reer galbeedka oo dastuurada reer galbeedka ku jira oo inta laga soo gooyay meeshan lagu dhajiyay sidiisii baa loo soo koobiyay waxba laga ma bedelin qodobka kale ee 12aad markii aad fiiriso waa fulintiisii weey waa dhaqan gelinta xuquuqda asaasiga ah weey waa the implementation of fundamental rights weey arkaysaa waa asnaba kaasoo kale weey asaguna qodob kale weey saasa loo soo koobiyay naftirkiisa marka translation kan ku raadiso waxaad arkaysaa inuu yahay implementation of fundamental rights inuu yahay waana qodob markaasi kaas kale badana lagu daro hada dastuurka Mareykanka waa sida saas ay isugu xigaan wala isku kabaa kaas kale furintiisii weey mid kaano markii aad isagoo dhan aad fiiriso oo qodob u dul istaagto waxaad arkaysaa waxaan dastuurka loogu yeerayo in dastuurada ay gaaladu leeyihiin reer galbeedka ah inta halkaan la soo dhigay oo mid kale to ayaduna empty inta la qaatay in lagu qoray arkaysa laga koobiyay markaysa erebixin ayaa lagu sameeyay hatta dictionary-ga lagu sameeyay erebixintaasi ayaa waxaan ogaaday in marka laga sameeyay inay soo saareen macad ku yaala gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa sameeyay hatta erebixintaasi oo soo sameeyay wasla ayagii baa sameeyay erebixinta marka eredan hatta arkayso si soo aadan yihiin ayaga noo sameeyay dictionary-da arkayso internet-ka ku jira oo English-ka iyo Soomaaliga iyo Spanish-ka iyo waxaan lagu turjumay ayaga inoo sameeyay boqolkiiba 80 kamid ah qaldan laakiin ayagu danta ay kala haayeen ka gaarayaan waxa inta dheer markii laga tago qodobadaasi turjumaada qaldan la saaray oo la yiri diinta islaamka ay ka turjumayaan oo beentii ugu weyneeda waxa jira organization shaqada ugu badan ka qabtay dastuurkan asagu uu qoray ba jira waxa magaciisa loo soo gaabiyaa IDLO ba loo soo gaabiyaa waxyaalaha organization kan uu qabtay oo dastuurka markii uu qorayay uu qabtay meeshaan ay ku qoran tahay waxa la yiri dhanka farsamada dhanka abaabulka la tashiga bulshada dhinaca cadaaladda qorshaha mataqaana qorsheynta fulinta arrimaha iyo dhan asaga sameeyay expert-ka ayaga lahaa fulintii ayaga lahaa dadka ayaga la hadlayay draftiga ayaga qoray farsamadii ayaga lahaa xagee marka Soomaali ka soo gashay organization dhan oo Mareykan ah ayaa qoray waxa constitution-ka noo ah erebixintan waxa laga keenay jaamacad Mareykanka ku taala ayaa laga keenay macad Mareykanka laga leeyahay baa laga keenay markaysaan halka loo laabanayo oo laga fiirinayana waa isla dhaqankoodii iyo constitution-kii Mareykanka ayaa laga fiirinaya markii aad fiiriso isla organization-ka markii aad gudaha u gasho fiiriso vision-ka ay leeyihiin iyo value-good markii aad fiiriso waxaad arkaysaa wixii aynu ka hadlaynay in halkan waxaad arkaysaa wixii western-ka yaalay inuu yahay vision-kooda sida dignity iyo equality-ga iyo waxa la mid ah iyo the rule of law halkee rule of law iyo diinta islaamka iska soo galaan waxaad kala arkaysaa value-ga ay leeyihiin markii aad fiiriso waxa uu horeeya gender equality iyo waxyaalihii qashinka hayo human rights-ki iyo wixii ay ka shaqeyn jireen way marka hay'adaas gaalada ah
waxay aaminsan tahay inaynu arkayno miyaa qortay dastuur islaam ah ama Soomaali leeyihiin how is that make sense my conclusion kaygu waxa weeye marka aan ku soo koobayo rabo qof kasta oo dhalinyaro ah inuu halka ka bilaabo duu doonayo inuu research sameeyo qodob inta u dul istaagtaan fiirisan oo time gelisan waad arkaysaa qodob walba meesha laga soo gooyay cid iska arkaysan marka waa dastuur ay shuraaka ku yihiin reer galbeedku oo la doonayo in umada loo hosgeliyo nagu socdo hebel dad magacyadooda Soomaali ah oo aan aqoon wixii aaminsan yihiin marka dastuurkaanu marka hore dastuur islaam ma marka labaadna dastuur Soomaaliyeed ma Soomaalina weliga taariikhdii dastuur ay leedahay meeshan qoran kii hore ee 1961 kii aftida laga qaaday af Talyaani iyo af Ingiriis buu ku qornaa asagoo qoran ba Soomaali loo dhiibay markii ay xorriyadda qaatay hatta asagoo qoran inta loo dhiibay bal afti u qaada luqadda uu qornaa hatta luqadda anagu aynu naqaan maysan ahayn kan haddana waa kaas kii horena kaasuu ahaa midka xasan hadda uu leeyahay waan qoranayaana ma naqaan wuxuu noqon doono inta sayaan muuqaalkan soo koobaya inta dib soo laaban waxaan ka tagaysaa nabadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh